نيو أنا محمد سني تركيا كلا حنون مقبة وحكلا مقبة وحاول نيو لبدين دول بامبيري عدن معين كده هي استقعدت كسية استقعدنا كقاعدة waxaan duubay hadda codkaas si leeyahay yiri ma maalan aan wax ma arkay xalay ma aan habeen hore 3 saac ali Abdullahi Shiina magaalada centerkeeda fadhina dalka ay ninkii yaqaan bay yaqaan xirad daraawish meel yar anoo fadhina igu dambeysay laba indhow oo wax ku arko walaalkan Soomaaliyeed ee lagu magacaabay Yaxye ee gaalkacyo ku nool oo si lama filaan hal mar aragiisa ku waayay oo fariintiisana soo gaartay marka hore aan u duceyno marka xigto xaaladan oo qofka si lama filaan aragiisa ku weynayo ka dhakhtar indhahan ma wax iska caadiya ma wax jinniye keenena mise xaaladaha indhaha oo araga lagu waayo qaar kamid ah waaye hab loogu hortaga ma jira sidoo kale hadii kugu dhacdo oo hal mar aad aragtid in aragaaga aweysid maxaa sameynaysaa intaas ayaan rabaa si kooban inaan muuqaalkan aan ugu hadlo midda koowaad horta waxay tahay afar xaaladood oo ugu waaweyn oo qofka asagoo caadi isaga socdo oo wax arag xumi aan isku ogeyn si kama hal mar aragiisa u waayo waxayna inta badan la xiriirtaa maskaxda xididaha qaado oo hal mar iskiis iska xiro sidoo kale xididka ugu weyn ee dhiigga siiyo isha oo hal mar isxirto isxiritaankaasna wuxuu noqon karaa xinjir hal mar tubooyinka xididaha dhiigga qaado oo hal mar isxiraayo sidoo kale arinta saddexaadna waxay tahay shabakada dambe isha oo soo fuqdo iyo arinta afraad oo ugu dambeysa oo ah in xanuuno soo jireen ah sida biyaha indhaha ku furmo oo kale oo araga hareeraha oo kale ka dhaawacay tartiib asoon isku ogeyn hal mar ay isxirto afarta xaalad inta badan ugu waaweyn midda maskaxda oo hal mar dhiig isxiraayo qofka ma ogsoonaan karo soo iska socda xalayada xinjir isxiro oo hal mar labadiisa indho oo hal mar araga uu waayo qofkaas oo kale waxyaabaha looga baahan yahay waxay tahay horta inuu u degdego xarumaha baaritaanada indhaha oo waliba qab casri ah yaalo oo inta badan qofka uu isku boojeen meelo farmasi iyo xarumo yarna isku boojeenin si uu u helo adeeg degdeg ah 4 saac ugu horeyso kale qofka waxa loo sameeyay karaa hadii uu xilli fiican uu ku tago in xinjirahaas isxiray madaxa marka iskaanis waxa laga qaado la furo oo sidaas qofka aragiisa uu soo laabto midda ah xididka isha dhiigga nafaqada siiyo inuu isxiro waa sababta labaad ugu badan oo qofka asoo is ogeyn oo araga uu ku weynayo qofka hadii xaalad noocaas ay ku dhacdo inta badan waxyaabahaas oo dhan nooc uu yahay waxay lagu ogaa kara baaritaan indhaha laakiin xididkaas markuu isxiro waxa fiican isla markiiba qofka inuu masaajo uu sameeyo isha masaajo saas inuu isha sameeyo sidoo kale dhakhtarka indhaha markaas daaweyn wuxuu siinaa pressure-ka indhaha oo hoos u ridayo qofka waxa laga yaabaa degdeg hadii arintan oo caawinaad uu helo in uu xididkaas isfurxin jiraha uuna aragiisa u soo laabto labada indho waa laga yaabaa marka qaar hal ilna waa laga yaabaa inuu xaaladan qofka oo sidaas aragiisa uu ku waayo arin saddexaad oo ah xaalada ah shabakada dambe oo soo fuqeyso qofka calaamada ayuu inta badan arkaya iftiin flash inuu arko araga hareeraha kale oo marka qaar wax uu filan arko madax xanuun oo kale inuu arko qofka xaalada noocaas oo kale inta badan Soomaalida way ogsoonataa oo dhakhtar badan u tagaan oo sidaas awgeed qofku nafteen inuu helo laga yaabaa hadii uusan ahayn qof wax iska indhatiro ayadana badana qaliin waxyaabaha soo galaa oo arag sidaas ayaa loogu badbaadiyaa cudurka biyaha indhaha ku furman waa arka bukaano badan oo ayagoo daawo isticmaalayo ogsoon xaaladooda ma ka caajiso hal mar aragood sidaas ku waayo xaaladahaas waa xaalado ugu daran oo inta badan qofka iska socdo arag ku waayo ka hortag uu leeyahay fariintan hadii ay ku soo gaarto asxaabtaada iyo familygaaga iyo inta taqaan la wadaag si ay u ogaadaan xaalada noocaas oo araga si degdeg araga u weyn karto inay jirto iyo ka hortag iyo daaweyn xilli horena lafkeeda lagu daaweyn karo hadii muddo dheer qofka uu waqti badan uu ku lumiyo meelaha aan daawadiisa ku jirin tusaale ahaan oo kale qofkan jinniya qabo oo kale waxyaabo kale lagu mashquuliyo waxa laga yaabaa fursadii uu aragiisa ku soo celin lahaa inuu waayo adiga xaalad noocan oo kale ma kula diristay sidoo kale qof qaraabada aad taqaaniin xaalad noocan oo kale ma la diristay sidoo kale ma aragtay in qofka asagoo xitaa daawo la siin saacada aragiisa uu ka maqnaado oo u soo laabto